السلام عليكم وقيب كميد موضوع عينو كجاه الليني سينسيان كي ويناء ألبرت أينشتاين وانا قيبتي سدحاد اي وقدم بيسي موضوعا هذا هو محي فرق يقول هي مسكحة ألبرت أينشتاين هي مسكحة هذا وحينو كجبوا دونا موضوعين أو موضوعي وقدم بي عينو كجاه الليني سينسيان كي ويناء ألبرت أينشتاين ألبرت أينشتاين wuxuu dhintay 18 Abriil sanadkii 1955 isagoo da'diisu ahayd 67 sano jir dhimashadiisa kadib Albert Einstein saynisyahano ku nool daafaha dunida ayaa waxay damceen inay ogaadaan waxa ka dhigay Albert Einstein mid caqli badan markaa kadib Albert Einstein maskaxdiisa inta la jeexjeexay oo qaybo laga dhigay ayaa loo diray adduunka si loogu soo sameeyo cilmi baaris markay saynisyahanadu baareen maskaxda Einstein way ka naxeen waxyaabaha ay ku arkeen maskaxdiisa celcelis ahaan maskaxda bini'aadamka waxay leedahay qiyaastii 100 bilyan oo neurons laakiin maskaxda Albert Einstein waxa ku jiray 17 neurons taasoo macnaheedu yahay in buqacdo dheeri lagu daray maskaxdiisa taasoo Albert Einstein isaga siisay awood maskaxeed oo dheeri sidoo kale maskaxdiisa waxa ka maqnaa dalool lagu magacaabo Brithial operculum sababtoo Albert Einstein xajmi dheeri oo Brithial operculum ayaa lagu kordhiyay 20% maskaxdiisa Brithial lobe waa qaybta maskaxda ka mas'uulka xirfadaha xisaabta iyo sawirada maskaxda natiijo ahaan kartidaas mala'awaalka ee waxyaabaha lagu kordhiyay maskaxda Albert Einstein marka waxaan dhihi karnaa maskaxda Albert Einstein way ka duwanayd maskaxda qofka caadiga saaxiibayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybtii saddexaad ee ugu dambeysay saynisyahankii caanka ee Albert Einstein aynu uga hadlay